اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان والدين تقالي واني ودا السلاميكم باشين كوتش مريان عبدي واي ما شاء الله ما انت مركا تريغان بل محا كجيرا تري cunto lagu wada la arki jiray tareygan waxaa ku jira buugaag buugaagtana waxa waaye iyo akhriska iyo knowledge-kana waa cuntada maskaxda sidii cuntada caadiga ah ee u faa'iideysa jirka buugaagtii wax akhriskana iyo fikradaha cusubna maskaxdii cunto iyo quud u tahay foods for the thought sidii dhahaan marka gabay waxaa jira oo carabi ah oo dhahaya awlaaduna akbaaduna tamshi cala alard ilmaheenna waa beerkeenna oo dhulka ku soconaya yacni taas maxay ku tusaysaa beerku waa xubin aad iyo aad sensitive u ah oo aad u jilicsan marka subxaan allah yacni ilmaheennana waa jirkeena qaar ka mid ah oo dhulka ku soconaya sida u dareemeyna taasna waxay ku tusaysaa dareenka iyo daryeelka oo waalid kaste iyo jaceylka ilmihiisa u qabo marka dareen kasta u qabtid ilmahaada waa ogtahay laakiin su-aasha waxa waaye ilmahaada dareenkooda see u ogaan kartaa waxay dareemayaan waxay ku mudan yihiin waxay la kulmeen maanta waxay beri aragtidooda tahay waxay yacni futureka aragtidooda tahay waxay yacni la kulmeen maanta shalay daraad waagii hore yacni seeba u garan karnaa waxyaalaha ku dhacay seebaa naftooda iyo qalbigooda iyo maskaxdooda yar iyo qalbigooda waxyaalaha emotionskooda seeba u dareemi karnaa especially the more ilmaha soo weynaanayaana the more social skill circlekooda sii weynaanaya yani dadkay arkayaan waalidkii keliya kuma xirnaanayaan yani xiriirkooda iyo lifekooda wuxuu aada ugu xiriirsanaanaya dad badan oo waalidkii yani awal waalidka keliya ahaan jirtay laakiin hadda dad badan baa soo galaya saaxiibaa imaanaya meesha macalimiintiyaa imaanaya saaxiibihii baa imaanaya iyo noloshiyaa sii weynaanaysa marka see markasta ilmaheena dareenkooda iyo wixii la kulmayaan iyo wixii feelingkooda emotionkooda seebaa u fahmi karnaa markay ilmaha yar yihiin adiga min bilaha ugu horeeya ilaa 2 sano ugu horeeya way aad bi sahal u tahay yani ina ogaatid markii faraxsan yihiin way qoslayaan way cayaarayaan haddii wax si ka yihiin iska oynayaanba way kusoo jiidaan ama way oynayaan marka taas waa easy laakiin markii xoogaar soo weynaadaan oo adiga 3 ilaa 4 soo gaaraan more oo nursery iyo waxa soo aadaan yani more waxaa dareemaysaa inay erayadii soo baranayaan cayaartii iyo dhexgalkii dadkii kale inay lasoo qabsanayaan oo more maxaa la yidhaahdaa lifekoodii ay ku xiriirsanaanaynin keliya waalidka markii 5 ilaa 6 soo gaaraanna more yani conceptka of friendshipka aad iyo aad yani qaali ugu ahaanaysaa yani xiriirinta saaxiibnimada wax aad qaali u ah bay u noqonaysaa qofkaas hebel waa saaxiibkay waa jeclahay yani jeceelka iyo saaxiibtinimada aad qaali ugu noqonaysaa erayo badan way soo garanayaan wixii ceeb ah wixii sax ah wixii khalad ah way kala fahmayaan erayo badan oo dareenkooda ee ka hadli karaana way baranayaan markaas wayna ka hadli karaan xoogaar ilaa xad laakiin haddii dareenkooda ay kuu sheegi karin ee sidii rabaan hadalka ay kuugu dhigin karinna waad ka dareemaysaa frustrationka iyo inay maxaa liya hadalka oo yani sidii rabaan haddii yeeli karin inay xoogaayar si kale gacanta ka isticmaalayaan ama wax ka isticmaalayaan oo yani xanaaqayaan haddii aragtidoodii iyo feelingkii ay rabeen inay kula wadaagaan haddii kula wadaagi karin markii 9 ilaa 10 soo gaaraana more waxaad dareemaysaa inay barteen sidii yani jokeska oo ama waxyaalaha qarsoonida secretska sidii saaxiibaha loola wadaago sidii liskala hadlo sidii maxaa layihahdaa si oo yani direct or indirect dadka looga hadli karo iyo wax looga sheegi karo way baranayaan more aragtidooda oo yani relationshipkooda ee saaxiibtinimada u qabaana aad iyo aad bay usii weynaanaysaa يعني opinionka ama aragtida saaxiibka aad iyo aad bay uga qaalisan tahay aragtida waalidka يعني more waxay tixgelinayaan wixii saaxiibahood ka sheegayaan ama la tahay
marka taasna waxay keeni kartaa haddii wax fiican tahay alxamdulilah, haddii laakiin wax khalad tahay ama negative waxyaalo ilmaha isdhahayaan intaas, taas waxay keeni kartaa yacni niyad jab badan ee caruurta markaas ay ku abuuri karto, because saaxiibkiisii oo qaaliga ku ahaaba hadduu saas uga hadlaayo. marka waqtigaas camal waxa waaye muhiim inay ilmaha bartaan inay istixgeliyaan dareenkooda iyo istixgeliyaan oo empathy inay lahaadaan, inay maxaa qofka kale markay ka hadlayaan ama wax u sheegayaan inay dareensanaadaan qalbiga ka jebin qofka kale. taas waa muhiim. markii adig 11 sano ay kasii weynaadaan oo 12 sano meelahaas iyo intii ka weynba markii soo gaaraana de waa markaas wax waa privacy bilaabanaya, inay waxay baranayaan inay wax kasta dareen kastaba inay khasab inay la wadaagin ama saaxiib ahaato ama maxaa la dhahaa ama waalidba ha ahaato. marka more waxay baranayaan concept of privacy-ga. markaas haye see tahay maanta ama okay, maxaa maalintaada maxaa la kulantay, see iskuulka ahaa, it was fine. hadalka yani waa lagu soo gaagaabinaya, hal ereyaa lagu dhahaya ama 2 erey ama 3 erey, hadalkao dhan waa lagu soo gaagaabinaya. marka waalidkii ku xiran tahay siduu hadalkii ilmihiis uga soo guri karo, ama cayaar ha ahaato ama quality time ee la qaadanaysa ha ahaato ama waalidka la qaadanaysa ha ahaato. yacni the more adiga waalidka aad iyo aad yani tarbiyada asaaliibta tarbiyada, because tarbiyada asaaliib badan bay leedahay, waxyaalo badan oo loo isticmaali karo xagga parentingka jira, parenting tools and techniques badanaa jira. marka the more sii baratid, the more baranaysid sida ilmahaada yani qalbigooda iyo dareenkooda iyo inaad usii fahamsanaatid, dabeecadooda inaad sii fahamsanaatid, sidii hadalka kula wadaagi karaan, sidii wax kasta kula wadaagi karaan ayagoo kaa baqanin inaad ku qeylisid ama maxaa la yiraahdaa ama aad yani u canaanatid markii haddii for example wax khalad sameeyeen. marka more ereyadoodaa sii fahmaysaa. sida la dhahayna words are the windows to the soul, yani ereyadana waa yani waa darishad oo qalbiga darishada qalbiga waaye. erey kastaba waa darishada qalbiga. marka dadka qaarkood waa arkaysaa sidii dareenkooda waxaad ka dareemaysa ama qalbigooda waxa ku jira sidii ereyadaas u isticmaalayaan. marka ilmahana yani ilmahoo dhan isku mid ma ilmo yani easy ku tahay inay iska sheekeeyaan naftooda maalintaas wixii lasoo kulmeen. ilmana xoogaa yar marmar way ku adag tahay. sidoo kalena waalid waxaa jira oo maasha allah oo yani ilmo kasta si fiican ula sheekeysan kara oo hadalka uga soo guri kara, iyo waalid oo xoogaa sometimes ista ku noqonayo markii loo dhaho maalinteeda caadi bay ahayd waxban lama soo kulmin hooy ama okay, maxaa la dhahaa halkaas iska fadhinaya. marka one of the ways oo aad ka caawini kartid ilmahaada inaa more ka baratid ama ogaatid sidii dareemayaan is quality time. markaa waqti la qaadatid waxyaalo oo ama cayaar ha ahaato, yani waxay ku xiran tahay agekooda iyo cumrigooda intii tahay. marka waxyaalo badanaa la sameyn kartaa ka mid ah. marka maanta halkan waxaan ku hayaa bugaagtan yaryar, waxaa la dhahaa kan hadda for example waxaa la dhahaa my little journal of gratitude. waxay ku fiicantahay ilmaha adiga 6 sane 7 sane 8 sane ilmaha yaryar ee ku fiican tahay. marka more waxay baran karaan sida uga sheekeeyaan naftooda iyo waxyaalay jecel yihiin. so for example hadda su-aashaas waxay leedahay things I love beginning with, يعني eraya qaarkood aan jeclahay waxay ka bilowdaan marka l waxyaalaha jeceshahay, oda waxyaalaha jeceshahay, vida waxyaalaha jeceshahay, yani ilmahay ku xiran tahay. markaas hadhowna hadalka usii dheereyn kartaa. other things I love ka dhigi kartaa markaas waxyaalo kala jeceshahay. marka halkaas yani waa sida conversation prompts yani hadalka sa oo la bilaabi kartid, yani tan waxay ka caawinaysaa sida hadalka oo la bilaabi kartid. marka erayadan iyo sentenceyadan marka isla akhrisiin hadhow sheekada halkaasi more kasii furfurmaysa kasii akhrin kartaa. if I had to describe my day in 3 positive words, maxaa dhihi lahayd? yani haddaa tan su-aashan waxa waaye haddaan dhaho maalintii ama maanta
saddex wax oo wanaagsan aan maanta rabaa inaan xasuusto aan ka hadlo oo just yacni 3 kelmadood keliyana ka sheego marka taas waxay ka caawinaysaa ilmaha inay more focus ku sameeyaan waxyaalaha oo maalintaas wixii wanaag dhacay waxaa xasuustaa macallimiinta oo tarbiyada mid ka mid ah maalin wuxuu dhahaye ilmahayga badanaa markay iskuulka kasoo noqdaan ma wareysto yacni iskuulkii see ahaa tacliintii see ahayd macalinkaadii adiga homeworkii waxaas iyo iga warmadho waxaan dhahaa waxa igaa warantaa maanta hal wuxuu qurux badan aa la kulantay hal wax oo qurux badan aa la kulantay marka maalinta ugu horeysay ilmahayga wuxuu dhihi jiray maalmihii ugu horeysay way ku adkaan jirtay inay xasuustaan oo aabba ma xasuusano maxaa layihahda wax qurxoonaa la kulma anakaaba yacni waqti siinayba inaan ka fakarno waxyaalaha qurxoon laakiin markii dambe caruurtiis way la qabsadeen su-aashaas marka maadaama aabbahood oo sugi doono oo weydiin doono maxaa wax oo qurux badan aa la kulanteen marka waxay noqotay inay yacni they pay attention inay kasii fakaraan inay already sii diyaariyaan waxyaalihii uga jawaabi lahaayeen iyo inay usii fiirsadaan waxyaalaha oo quruxda badan naftooda iyo maalintaas ay la kulmeen inay usii fiirsadaan kasii fakaraan marka sidii hadhow waalidkood oo la qaybsadaan marka taas waxay ku tusaysaa inay muhiim tahay ilmaha inaa barno sidii naftooda iyo dareenkooda uga sheekeyn karaan and the more ilmaha wallahi waxyaalahaas camal aa la akhrisid ama ka sheekaysiin marmar badan waxaa arkaysa waxyaalo badan aad ka ogeen aa ilmihii ka ogaan kartaa oo yacni aa isdhehaysa xitaa marmar adiga xitaa dhaqankood saa aday ula dhaqmaysid siday ka dareensan yihiin marmar waxaa laga yaabaa adoo ordaysid inaa erey ku dhahday markaas waxay ku dhaheen hooy maalintaas ereyga ay dhahday saasaa ii dhahday saasaan dareemay marka yacni it will help them inay more hadalka ee kalsooni kugu qabaan ee kaala sheekaysan karaan waxay jeceli inay kaala sheekaystaan marka taas hadda tan camal an ending is always followed by a beginning يعني wax kaste oo dhamaada mar kastana wax cusub baa bilaabanayo يعني dhamaad kasta wax kasta dhamaaday for example saaxiibada baa kala tagteen way dhooftay meel kale aaday markaas wax kale cusub insha Allah saaxiibnimo cusub iyo wanaag cusub ku bilaaban doona hadda tan camal hadda gabadhayda oo 9 sano ilaa 9 sano jirtaa buugan ugu talagala u soo gaday inay ayadana isla akhrisano isla bahalkeena weli uu cusub yahay marka ilmaha oo 9 sano ilaa iyo 10 sano jira ama ilaa 11 sano يعني more journaling way qori karaan ay ka qoritaan oo qoritaanka caadiga u sii qori karaan ay wax uga sheekeyn karaan marka way fiican tahay for example hadda exercise kan camal aad iyo aad oo yani oo nafac u badan leeyahay oo very beneficial u yahay ilmaha for example waxa halkan ka bari kartaa caruurta oo ka sheekeysan kartaa coping with setbacks markii wixii oo niyad jab ah ama wixii aad ku guuleysanin ama wixii aad si khalad u sameysay ama aad ku dhacday wixii aad ku dhacday wax kasta ku dhacdid sidee uga gudbi kartaa waxaasa ku dhacday marka wuxuu leeyahay halkan look back was there a time in your life when things didn't go to plan يعني mar ma jirtay waqti oo lifekaada waxyaalaha saa jecleed inay isku aad mismanaato oo wixii sidaa rabtid inay noqoto ee noqon kari weede failure can teach us a lot يعني markii ama wax oo nagu dhaceen ama aday niyad jab kasta nagu dhacday ama wixii oo aan ku guuleysanin wax unbaad ka baranaysaa wax kasta aad ku guuleysanin wax kasta aad ku dhacdid wax unbaad ka baranaysaa yani wax unbaad ka fahmaysaa aad ka qaadanaysaa aragtidaas ama experience-kaasaa martay not least the resilience we demonstrated to get through a difficult time so يعني waxa يعني sabarkaad baraysaa ilmaha يعني markaste baby kasta hadda fiiri markaste markuu socodka bilaaba intee jeer u dhacayaa tusaysa for example markaa baby ahayd inta jeeraad dhici jirtay dhulka ku dhici jirtay haddana soo kici jirtay haddii cunug kastaba oo ka baqdo inuu dhaco marna ilmana ma baran lahayn sidii hore u socdaan u istaagaan
marka failure is a part of the life yani waa wax caadi ah inaan marmar wax ku dhacno inaan marmar wax ku baasi weyno inaan marmar niyad jab nagu dhacdo waa wax nolosha ka mid ah oo caadi tahay inaan oga baxno markaas yani sabarka lagu bari karaa iyo resilience-ka ilmaha xoogaa kasii waaweyna taas xoogaa kan ilmaha adi 12 sano iyo wixii ka waaweyn ku fiican tahay 12 sanana ilmaha markii jiraan waa markii oo self esteemkooda iyo yani aad iyo aad kalsoonida ee naftooda ku qabaan ee aad iyo aad low usoo noqonayso markay yaryar yihiin aad isku kalsoon yihiin oo wax kastaba my way yani kalsooni badan ba isku qabaan laakiin markii xoogaa soo weynaadaan waxa u malaysa kalsoonidaas inay aad iyo aad usii daciifiso marka waalidka waxaa laga rabaa muhiimadiisa tahay inuu kalsoonida ilmaha ina kor u marka saa sheegnay ilmaha especially markii teenager soo galayaan qofka ugu muhiimsan oo kalsoonidaas aad iyo aad ugu abuuri kara waa waalidka haddaa buuggaan fiirina marka waxyaalaha ku yaala kan waxaa umalaynaa xoogaa gabdhuhu ku fiican yahay for example halkan haddaan fiirino waxa waaye goolashaadii ahdaafkaada nolosha saaratid inaa u gaartid yani waxaa lahaan kartaa dreams badan baa lahaan kartaa waxyaalo aa rabtid noloshaada inaa gaartid aad jeceshahay hamigaada muxuu yahay maxaa jeceshahay noloshaan inaad gaartid sideeba hadafkaadaas u gaari kartaa muxuu yahay hadafkaada waay u rabtaa hadafkaas inaa u gaartid muxuu yani maxaa waa sababta oo kugu abuurtay inaa hadafkaas jeclaatid inaa gaartid sidee u gaari kartaa yaa kaa caawini kara maxaa waqti cayimisatay oo waqtigaada yani waqtiga aad ku xisaabtamaysid intee maalmood ay kugu qaadanaysa intee bilood ay kugu qaadanaysa inaa hadafkaada gaartid caqabooyinka kaa hor imaan kara hadafkaas maxay tahay iyo maxaa xal u ah caqabo nooc kasta haddii kaa hor imaato maxaa xal u haysataa u diyaarsatay hadhowna rewardka isiinaysid ama jaa-isada isiinaysid abaal marinta isiin doontid maxay tahay marka taas yani waxay ka caawinaysaa ilmaha iyo dhalinyaradaba inay yani hadafkooda waadix u ahaado clear u ahaaday ka caawinaysaa marka insha Allah tacaala intaas baa kusoo gabagabeynaya ilaahay idinkiis waxaan ka barinayna ilaahay idinkiis inuu ilmaheen oo dhan iyo ilmaha muslimka oo dhan qurrata cayn ilaaha nooga dhigo ilaahay insha Allah tacaala dadaalkeena adduunyada aakhiraba ilaaha naga abaalmariyo ilaahay qurrata cayn ha nooga dhigo ilaahay ha noo hadeeyo shar iyo shaydaanba ilaahay ha ka duwa insha Allah تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.